dal boqortooyo tuurana ku dhasho ti ha intii si iska gashtay moogtay kan hees waa hees runtii amaana kii ugadaalsan keetana lagu ma amaanay hablaha Soomaaliyeed oo dhan baa lagu amaanaya hadii dib leedigiisa hadii dhawac leedigiisa dumarka yaan la xumaynin dumarka hala wanaajiyo dumarka hala dhawrto dumarka wax ka qurux badan ma jirto markay gabadh markay gurigeeda haysatana wax ka qurux badan ee reerkeeda ku dhex jirto wax ka qurux badan ma jirto السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البريدي السلام يا جماعة صاحبة قلبي غفران. هكذا جدا وصلت إلى سعوتها وقت حادك هذه جلسة سعوتها مرعي ميديا جروب هذا اليوتيوب شانل كي كل عصوبتي أما أتهدى وضعنا نقول عصوبة هذا نصوب بقدر فضلا لايك شير سبسكرايب أنت وكوكب بعد ما سد صاحب تقول واحدة بدنا له ونعكسين يا شرف له يا شانل كوجو حيران تايم. وحنا هي هاس رنتي معلومها بالسوشيال ميديا كوتشيتي لنا هذا الحي ولا لها فنان كحسوق على الكعسة kadib Soomaalidu waxay u badeen in uu leeyihiin wuxuu u qaaday ugbad aragsan buu heesta soo qaaday marka heestaasna roo inaan raash ka bixino in ka fal celino bal markaan isla soo aragno dibkaad soo martay dheemanay iskaylow dibwaagi ku gasta dheemanay iskaylow dawaacu kaaga taga dheemanay iskaylow anaa kula dhashay ku dhimo waan ku dhaafay dibkaad soo martay dheemanay iskaylow dibwaagi ku gasta dheemanay iskaylow dawaacu kaaga taga dheemanay iskaylow anaa kula dhashay ku dhimo waan ku dhaafay dibkaad soo martay dheemanay iskaylow dawaacu kaaga taga dheemanay iskaylow anaa kula dhashay ku dhimo dheemanay iskaylow wah هلا يا صوت هلا يا هيس بالورنجري wuxuu ku dibki iyo dhaawaciya xanaftii uu kaaga tagay haduu inta soo qaado ugbad inuu ka dhigay ahayd laakiin Soomaalidu baas ka tir uu soo qaado Soomaalidu way iska malaysaa dhaawacu kaaga tagay dheemanay isku day ugbad aragsan already way soo kabatay hadii hadiyada heesta loo qaaday la soo ka soo kabatay ee guursatay gurkan iyada ku horeysay sidaan maqlay markii iyadu guursatay uu ka daba guursaday qamar suugaani marka laakiin hees suntiga gadan aniga dibka soo matay gabdhaha Soomaaliyeed dhan bay magaca khusaysa waa dareen ama dambaal loo diray gabdhaha Soomaaliyeed dhan in la dhashay la xumaynay wada dumarka yaa la xumayn Allah yaa isag wad way saaxib qurux dumar dhiman dumar waada dhaqankiyo xishoodka lagu daashay dhammaan shacabkeen munawama isku raac inaad tahay dhimantii abla lagu daaray inaad tahay gobtireerka intii seelada imku gashay soo heesta marka uu qaaday isagu ninkan ma wadin karaba raabku isagu ninkan ma wadin karaba isku raacina tay abaa kulaha abaa iyo aboowe iyo abaa iyo ninka odayga ma wadin karaba wala isku raacdu kana taqaana isku raacina tay dal boqortooy iyo waxa isaga iskale raadana dal boqortooy iyo waxa aad maqshin ninka lika casay qays bas kale ninka odayga horta waa haysa macay runtii xaqiiq marka laga hadlo waa nin haysa macaan laakiin ninka waa suufi ma baqasho qofkaas waa suufi ninka waa iska suufi saaxiibka la kaftabaya waa suufi isagu suu heesaha kugu qaadayo ay badaakisa kiyo bad kale iska galay hawlo kala loo dirsan iyo shaqo kala loo dirsan saaxiibkayga Soofiga kiyo dhex jibaahay barka halka xasan maxaa dhacay Soodiga bad kale garsuus ka oranaya dibkaas soo martay dheemanay iska yellow wad way saaxib kama dargo hadalkaada xuran ceentay qays baa ku diyaaray oo ku dhow qalma geelo dhalayna gaabiidi gacantaada quluubte kama deela hadalkaaga qays baa ku diyaaray yarta dunta xariirta la shafta leh isaasku ma garanaysaa ha dhan wabo ka diyaarsanay qays baa ku diyaara kama dhargo hadalkaaga way waxa wax yar sood macaan xabatulus baa tahay tufaax waa tahay malab baa tahay Allah ya isag waxay kamiyeen eriyada ama oraayada ka soo baxay ninka odayga ana magarsa geel ka bixinayo ku leeyahay dadkii hore ma garanaysaa in yar ka dhiibi anu in badan baan ka dhiibaya walaal adigu diyaariin noqo harma heesba والمرابع المعلى عالبا والمصولبا برواي هنا سي ودنا افكاغا عانا قول ugu qabay si wadoodu dhageysano dhagtuna kala socdo wadwaay dulki hooyo laas gore aan ku soo baro aadina jabin cadawa u jabin dohane ha u jabin inaadee dukaad dhulka hooyaan Soomaaliyeed ninka wan inuu jecel hees walba uu heesiyo fiirsada ninka wan dhulkiisa waan in dadkiisa iyo dalkiisa oo jecel marka xaqiiq aynu ka hadalno hees walba uu heesiyo ama hees walba uu waqtiga soo qaadayo dhulka hooyo ku taraa dhulkeena hooyeen tagayna heesida dhan wala dhulka hooyo bad marka macnaheedu taa waxa ku caddayn ninka inuu yahay wadani dhaba hadaan la saxaqin oo aan magana saxaqaadi jirin waa wadani dhaba ninkani run ahaantii markaan ka hadlo sida muuqaalka looga duubay ninka muuqaalka ku tusay nabcaadahay biyo uga duubay inkastoo xogaa barbareed ninka ka waayo qaabka qoraalada qorayaan ka fahmaya wan iska barbarada helay ninka odayga laakiin sida kale top baa looga duubay
carabta daada waxaan ma garanaysaa fankuna waa dhalasho waa talent ninka xariga imka heestan inuu isagu samaystay waa hees raaba laakiin inuu isagu samaystaa laga yaabaa eeg waxaan suugaanta mar walba waa inaad adigu sameyn kartaa intaas waxaan imka waxa garanay fanaaniintaas oo sana fanka ku jiri waan weligood hees sameyn waxaan wax sameeyaa suugaanta waa dhalasho waxaan hibo markaad maqasho waa dhalasho codun helo soo diin dadka ereyadoodii maskaxdooda ku qaraaban hore fanaan baan ahayn maskaxdaada wax ka keen si aad dadkaagana aad ugu soo gudbiso shucuur wanaagsan allah yaa ciise balansi wadno got so much today man I stay low the way you gets the day man I stay low da wa ukaga taga day man I stay low ana kula dashi ku demu ugu dhaqa got so much today man I stay intaan u baana intaas ay ahayd gabadha uu gaaru ka sii laabayo ayaa heesta lagu targay yani wuxuu jeed ninkan odayga shakhsi ka yahay hees muusa soo qaadin oo ugbad aragsan inuu ka yahay muusa soo qaaday waayo iyada mar hore ka kabatay oo ay ninka la iska gursto xaaji kale iska gursto markaas kareer kale iyadu leedahay marka iyada ka yahay muusan ma garanaysaa soo qaadin wuxuu soo qaaday gabdhaha Soomaaliyeed kale ma garanaysaa la xumeynaya ma garanaysaa ayuu soo qaaday dhibkii aad soo marteen dhaawicii aad soo marteen iska wada ilaaw anaga idin ka dhayayna wuu ku leeyahay dhibkaas soo martay dheemanay iska ilaaw dhaawicu kaaga tagay dheemanay iska ilaaw anaga kula dhasho ku dhiman wax la siistaa ma jirto nin walaalka ayo ku amaanay kula anaga kula dhasho oo ku dhiman iska ilaaw wahada loo baahay Allah ya isag hadii aan hees sii qamay ereyad way erey miisaan leh inta damba ma gartaa intiisa yarad kasho iska ilaaw dal boqortooy aad too anaga kula dhasho ti ha intiisa iska gashtay moogtay kan hees waa hees runtii amaana kii ugu gadaarsan keetana lagu amaanay hablaha Soomaaliyeed oo dhan baa lagu amaanaya hadii dib leediykiisa hadii dhaawac leediykiisa oo dumarka yaan la xumaynin dumarka hala wanaajiyo dumarka hala dhawrto dumarka wax ka qurux badan ma jirto markay gabadh markay gurigeeda haysatana wax ka qurux badan reerkeeda ku dhex jirto wax ka qurux badan ma jirto isaan hore u sheegay intaas way ka soo kabatay iyadoo already waa guursato xaaji kale haysata reer kale haysata Allah u barkay ninka kala taganayeen inta ugu caanoonda maxad ku kala tagtay labada qof ee bini'aadanka ah weligood way isqaban jireen laba qof is qabaday weligoodna waa kala tagi jireen si wadwadina oran maxay labadan qof u kala tagan iyana orani waa kala tagay inta wala kala carray walaalo adduunyada hadii la is fahmi waayo labada is fahmin baa isla joog labada is fahmi waayo way kala tagayaan is fahmaan baa adduunka lagu joogo hadii is fahmi weynida weyn ku kala yaacna waxaan isku sheegaynaa iskiya marka labadaas neesaasi ku kala yaaceen isna mid uu fahmi heshay ayuu helay iyaduna mid ay fahantay heshay marka waa reer dhisan bay wada yihiin laakiin hees waxay khusaysaa gabar walba oo marka waqti xaddi ka magaranaysaa ila dhaawacay oo dhaawaceedu cusub yahay ayay khusaysaa hablaha dhaawacooda ka soo kabtay maaha ugbadiya maaha hablaha dhaawacooda ka soo kabtay waa hablaha dhaawacooda cusub yahay ee imka la soo dhaawacay ayay khusaysay uu leeyahay iska ilaa waana idin la dhashay qays baa geel inta ka bixinaya marka uu togolan markiisa wada garax ku tahay geel baa naga bixinaysay tii geeli kaale imka naga bixi geelkii wana kaaga fadhina ilaa isaga ku soo haysay Soomaha inuu ku meenanaysin isaga ku haysay marka geeli baa laga rabaa ninka odayga inuu bixiyo hablaha ka bixiyo uu ballan qaaday ilaa isaga geela ballan qaaday Soomaha adalaada lagaga fadhiya baan ku leenahay waan salaamay dhamaan saaxiibada qalbiga frolan murac media ku xiran heestana hala kala kiciyo 1 milyan loo gaarsiiyo hees runtii khusaysa gabar walba oo markaas shucuurtii qalbiga laga dilay qulubta lagaga ciyaaro laga musbaaray ayay khusaysa Allah ya ciise badnay hawl wanaagsan saaxiib kiib goyn adiga kula heesaan noocaas soo badiyo heesaha soo kala soo badi iska daa hawlahan kale aad ku jirto maalmahan arkay Facebook maalmahan hawlo kale aad adigu ku si faahfaahinay marka indhaha ka fahan iska daawaan kula hawlaha kale aad ku jirto ka bax hawshaada iyo fankaaga u soo jeeso dadkaaga iyo shacabkaaga iyo shanta Soomaali oo qan iyada had iyo jeer adun baa lagu ogeynaa tirada shanta Soomaali wiilkii shanta Soomaali ka dhashay baan adun baa lagu ogeynaa tirada marka shanta Soomaali sa isku keenay falowgeeda kale ma hayna magaala hawlihii kale maalmahan kugu ogaa aad ku jirtay ha gelina ka bax baan kula shanta Soomaali sadoo mid lahayd ee walaalaha baan ku wada hol jirnaa dhamaanteedba aduna dhinacaaga ka qabsan kulaayay hatta tay daawada naga cusubna dhinacaaga aduna ka qabsan kulaayay si shanta Soomaali la isku keenay laha adban idin salaam saaxiibada qalbiga furle oo murac media group walaalkii Yaxya Cabdiraxmaan iska wada ilaawana wixii dhaawac loo wada geyso dhano iska ilaawada guys